sanad guuridii 54 ee ka soo wareegatay aasaaska ciidanka badda ee xoogga dalka ayaa loo dabaaldegay waxaana ka qayb galay wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidanka xoogga abaanduulaha taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka jenaraal maxamed aadan buud iyo saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida dowlatus ku aadan munaasabadda ayay goobta ku soo bandhigeen cutubyo ka tirsan ciidamada difaaca xeebaha xoogga dalka oo ay ka muuqatay diyaar garow ballaaran admiral Sareegaas Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo ka qayb galay munaasabadda ayaa ka sheekeeyay taariikhdii iyo marxaladii kala duwanaa ee soo mareen ciidamada badda bishii Febraayo 1970 taliyii ugu horeeyay unitkiisa lagu bilaabo anigoo ahaa bateriga koobaad ee madaaficda xeebta ayaa halkaan ay u ahaa jirta saldhig ilaa baterigaas laga geeyo 1982 beledweyne dushiisa aniga naftaydu aan geeyo markaan ciidankan aan taliya ka ahay halkaasna ay mataqaa wixii Soomaali ciidankeedu ku qabsaday ayaa ku qabsaday laakiin waajibkeeda waa gudad admiral Sareeyo Guute Cabdi Warsame Ismaaciil taliyaha ciidanka badda ayaa sheegay in ciidamada badda sanadkan ay ka muuqato dib u dhis xoogan maanta waxaa nasiib wanaag ah in aan ay koow tahay in aan ku dabaaldegno halkii koow laga aasaasay ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee bateriga madaafiicda xeebta loo aqooni jiray in aan maanta ku xusno sanad guuradii 54 inaan ku xusno maanta waa farxad oo laba-laaban waxaan filayaa waa joogaan maanta saraakiil aqoon u leh ciidanka badda nasiib wanaag saraakiil xigeenno iyo dabley aqoon u leh way joogaan waxay u baahan tahay kaliya waxa weeye in la dhiirigeliyo isla markaana baadigoob wadajir ee loo galo wax alla wixii suurtagal ah ee lagu dhaqaaji karo ama lagu ilaali karo badayna taliyaha ciidanka xoogga dalka Sareegaas Daahir Aadan Cilmi Naqarshe ayaa hambalyo kadib sheegay in taliska ciidanka xoogga dalka uu ku guuleystay sanadkan in dib loo dejiyay ciidamada badda xaruntooda waxaan kaloo ogahay in shacabka Soomaalidu boqolkiiba nagu garab taagan yahay dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhammaan gaar ahaan ciidanka badda si loo helo oo loo ilaaliyo dhibaatada ka jirta badda ee ah aad ogtihiin mar wax sun ku shuba iyo mid malaay qaata iyo mid wax walba dhibaatada ay nagu hayaan dadkaas ajnabiga ee mataqaana sida sharci darrada uga kalluumaysta dalkayaga marka mar haddii aan aragnay dowladdii mowqifkii dowladda iyo mowqifkii shacbiga Soomaaliyeed waxa kaliya oo markaas aan ku talageli karnaa waxa weeye mustaqbal fiican inuu soo socdo annagana waxaan la ka rabaa inaan hiigsano mustaqbalkaas fiican wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda u diray dhammaan ciidamada badda waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay xoog saareyso dhismaha iyo tayeenta ciidamada qalabka sida runtii waxaan is leeyahay meel fiican ayaan soo gaarnay sababtoo ah taariikhda Soomaaliya waa la ogyahay waxaan kaga jirnay kaalin aad u mug leh oo aad u wanaagsan laakiin dal burburay sidiisaba wuxuu u baahan yahay inuu soo kabto waxaan aaminsanahay maanta inaan hayno dhabadiisa oo kabashada 1970 ay ahayd markii la aasaasay ciidamada badda waxaana ka soo wareegatay 54 sano waana markii ugu horeysay burburka kadib ay ciidamada badda ay ku dhigtaan munaasabadooda xarunta taliska ciidanka badda ee magaalada Muqdisho oo dib loo dhisay Maxamed Xasan Cali idaacadda telefishinka qaranka magaalada Muqdisho.